xuska labaatan iyo lixda juun waxaa walaalaheenna gobollada waqooyi dhalinyaro iyo waayeen rag iyo dumarba aan ugu baaqayaa inay tahay mas'uuliyad inoo wada yaalla inaan dib u hanano qarannimadii iyo midnimadii dalkeenna iyo waddankeenna iyadoo taariikhdeenna dhow qaybteeda xanuunka iyo foolxumada leh ay tahay inaan ka gudubno si aan u gaarno mustaqbal ka wanaagsan kan maanta aan ku sugannahay walaalayaal konton iyo toddoba guuradii 26 juun waxay ku beegan tahay anigoo sanadkan ah madaxweynihii qaranka isla markaasna waxaan dib u xasuusanayaa dabaaldegyadii u dhacay doorashadii dabaaldegyadaas ay isugu soo baxeen ayna soo dhoweeyeen dhalinyaro fara badan waayeen rag iyo dumarba oo gobol kastoo Soomaaliyeed jooga waxay ahayd fariin hankeedu uu aad u weyn yahay saldhigeeduna oo ahaa nabad iyo nolol midnimo iyo cadaalad marka munaasabadan waxay tahay mid aad iyo aad ugu weyn taariikhdeena waxaana dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeynaya 57 guurada ka soo wareegtay maalintii calanka Soomaaliyeed oo xora laga taagay dhul Soomaaliyeed waxaan dhabaalkayga hambalyada aan ku khatimaya inaan soo xigto erayadii suugaanta ahaa ee ka oohisay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn Khadra Daahir Cige waxaa tiriyay maansadaas Shukri Ganay erayadaas waxay ahaayeen isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay anuguna walaalaheen reer Soomaaliland sidaas oo kale waxaan leeyahay walaalayaalow isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay hambaliyo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo Soomaaliya ha midowdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidaas daawaneysaan bullalayr dabaaldeg ayaa soconaya daawadayaal oo magaalada Muqdisho waxa ay qabsaday haatan bullalayrka quruxda badan halka ayuu ku soo idlaaday dabaaldega quruxda badan marka ciidamada ammaanku ay sameynayeen maahan waxaad maqlayseen rasaas dhibaato keenaysa laakiin waa bullawayr oo waxay qayb ka tahay dabaaldega maalmaha quruxda badan oo caawa xafladda ay qayb ka tahay waana waxyaabaha ay uga duwan tahay xafladani xafladii hore ee halkan ka dhici jiray